bishii Sebtembar sanadii 1949 saynisyahano Mareykan ayaa dareemay shucaaca hawada ka soo galay meel kamid ah dhulkii Soofiyeedka kaasoo noqon karaya oo kaliya tijaabo hub nuclear ah. markii madaxweyne Truman warkaas loo sheegay wuu aamini waayay isagoo la taliyaashiisa dhinaca sayniska iyo militariga ka dalbaday inay baaritaan ku sameeyaan arintaas. markaas wixii ka horeeyay sirta qalabka laga sameeyo nuclear-ka waxa haysatay Washington oo kaliya. markii xogta la xaqiijiyay Truman wuxuu soo hor istaagay qaranka wuxuuna u sheegay in xilligaas wixii ka dambeeya uusan Mareykanka ahayn wadanka kaliya ee haysta hub nuclear ah. sida laga soo xigtay xarunta sirdoonka Mareykanka ee CIA-da helitaankii Soofiyeedka ee hubka nuclear-ka wuxuu lama filaan ku noqday dhammaan dawladaha reer galbeedka. khubarada Mareykanka ma aysan aaminsaneyn in Ruushka ay hubkaas heli karaan ilaa laga gaaro sanada 1953. taariikhdu waxay dhigaysaa bishii Agost 1949 midowgii Soofiyeed si rasmi ah ayuu u noqday dalkii labaad ee haysta hub nuclear ah markaasoo ay qarxiyeen bombadii plutonium-ka ee loo yaqaanay RDS-1 taasoo ahayd hubkoodii ugu horeeyay ee bom nuclear ah. haddaba ku soo dhawaada qaybtii labaad habkii uu Soofiyeedka ku helay bomka nuclear-ka. qaybtii hore haddii ay ku dhaafto waxaan kuu soo dhigayaa description-ka hoose ama qaybta kore qoraalka yar oo kaaga soo baxaya ku dhufo si aad qisadoo dhameystiran ula socoto. haddii aad mareegta Google-ka ku qorto su'aasha ah kuma aha saynisyahankii sirta bomka nuclear-ka ka iibiyay Soofiyeedka, jawaabta ugu horeysa ee kuu soo baxaysa waa saynisyahankii weynaa ee Dr. Klaus Fuchs. Dr. Klaus Fuchs wuxuu meel u dhow magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka ku dhashay bishii Sebtembar sanadii 1911. aabihii wuxuu ahaa baadari lagu magacaabi jiray Emil Fuchs oo ka mid noqday dadkii ka soo horjeeday maamulkii Naaziyiinta. Klaus Fuchs qudhiisa wuxuu markii dambe ka mid noqday dadkii aaminsanaa fikraddii hanti wadaagga wuxuuna ku biiray olole ka dhan ah Naaziyiintii ee uu hoggaanka u hayay kaligii taliyihii Adolf Hitler. markuu Hitler qabsaday xukunka Jarmalka wuxuu u qaxay isaga iyo qoyskiisa dhinaca wadanka Britain sanadii 1933. halkaas wuxuu ku dhameystay waxbarashadiisa dhinaca sayniska kadibna wuxuu bilaabay howlo basaasnimo ah uu u sameynayay wadamadii Britain iyo Mareykanka. mas'uuliyiintii Germany ayaa dawladda Ingiriiska u gudbiyay digniino ku saabsan Dr. Fuchs sanadii 1934 waxayna u raaciyeen in Dr. Fuchs uu ka mid ahaan jiray dadkii aaminsanaa nidaamkii hanti wadaagga ee u janjeeray dhanka midowgii Soofiyeed. laakiin boqortooyadu way iska indhatirtay digniinadaas maadaama cidda xogta soo gudbisay ay ahaayeen Naaziyiintii Germany. 70 sano ka hor gaar ahaan sanadii 1950 Dr. Klaus Fuchs waa la xiray kadib markii looga shakiyay inuu u basaasay midowgii Soofiyeed. xilligaas Dr. Fuchs wuxuu ka mid ahaa madaxda waaxda sayniska iyo cilmi baaris hubka wax gumaada ee boqortooyadii Ingiriiska. intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka wuxuu ka shaqeynayay waaxda tamarta atomiga ee UK. sidoo kale wuxuu ka mid ahaa howlwadeenadii mashruucii Manhattan ee lagu sameeyay bomkii ugu horeeyay ee nuclear ee adduunka. waxaa la sheegay in Dr. Fuchs uu warqado xog ku qoran tahay ka tuuri jiray darbiga xarunta Kidontenberg sidaasna ay ku qaadi jirtay haweeney magaceeda afgarashada uu ahaa Sonia. xogtaas waxay ahayd macluumaad xasaasi ah oo ku saabsan sida loo sameeyo bombooyinka atomiga ah. markii la xiray wuxuu qirtay dambiyadii uu sameeyay. saynisyahanadii uu ka mid ahaa Dr. Fuchs ee cilmi baarista ku sameeyay xarunta Hallwell ayaa suuro geliyay sameynta hubka wax gumaada ee nuclear-ka. intii ay socotay dacwadii ka dhanka ahayd wuxuu qirtay 4 dambi oo ku saabsan jabinta sharciga qarinta sirta. waxaa lagu xukumay 14 sano oo xarig ah kuwaasoo 9 sano oo ka mid ah oo gudaha xabsiga ku dhameystay. markii xukunka lagu riday garsoorihii maxkamadda wuxuu yiri waa ceebaysay soo dhaweyntii iyo badbaadintii uu ku sameeyay wadankan Ingiriiska. Nick Hannes oo ahaa qoraa wax ka qori jiray taariikhda xarunta cilmi baarista hubka nuclear-ka ee Hallwell ayaa sheegay in Dr. Fuchs uu xisaabaad is afgarasho ah ku gudbin jiray sirtii bombooyinka atomiga. Mr. Hannes
wuxuu hoosta ka xariiqay sida ay u weyneyd dambiyadii uu geystay saynisyahankan, wuxuuna yidhi wuxuu khiyaano iyo dhabarjebin ku sameeyey waddankiisa oo ah halkii sida wanaagsan loogu soo dhoweeyey uuna ka helay boos uu uga shaqeeyo xarunta Hillwell, weliba lacag aad u fara badan ayuu ku qaadan jiray mashruucaas. Wuxuu intaas ku sii daray wuxuu ahaa nin aad u caqli badan, wuxuu ogaa cawaaqibka ka dhalanaya sirta uu gudbinayay. Taas micnaheedu waa inay jirtay suurtagalnimada in Ruushka uu nuclear heli karo inta aysan helin Mareykanka iyo Britain, taasna ay horseedi kartay dagaal saddexaad oo adduunka ah. Waxaa la aaminsan yahay in sirtii ugu weyneed uu saynisyahankan bixiyay mar xilligii dagaalkii labaad ee adduunka uu ka shaqeynayay sameyntii bambadii atoomiga ee ugu horreysay dunida ee ka socotay magaalada Los Alamos ee gobolka New Mexico. Fuchs markii uu xirnaa 9 sano ka mid ah 14 sano ee lagu xukumay waa la sii daayay sanadii 1959 wuxuuna u dhoofay wadankii markaas la oran jiray Jarmalkii Bari. halkaas ayuuna culumtiisa sayniska ka sii watay ilaa uu ka geeriyooday sanadii 1988. waxaa la og yahay in Fuchs uusan ahayn saynisyahankii keliya ee sirta Mareykanka u basaasi jiray Soofiyeedka, balse waxaa jiray saynisyahano kale sida Truder Hale, Cecil Sachs, Julius iyo Ethel Rosenberg iyo kuwa kale. laakiin Fuchs ayaa ahaa ninkii ugu caansanaa ee bixiyay sirtii ugu badneyd ee nuclear-ka.